الله يسلقنا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سلامة يا رما شعبك الصومالي ملقس الدنيا كتشوغان شعبك الجيس كافريكا الصومالية خاصة iyo dhammaan wadamada dariska ee Soomaalidu dhulkooda la haysto ama ay ku nool yihiin. Bacda salaan shanta Soomaaliyeed ee geeska Afrika waxaan gaar u salaamayaa caawa madaxweynaha xiniyaha iska baaray Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo ay tuulay tahay xilliga uu xiniyihiisa miiska saartay waxaan rabay 4 sane la soo dhaafay wixiisu inuu miiska iska saarto oo beeshan caalamka iyo ruwaayadan ay Soomaaliya ka wado banaanka iska dhigo. nasiib darro markii uu biyihii halkaas soo istaageen ee wejigiisa keliya uu bannaan yahay ayuu madaxweynuhu afka furtay. horta Xasan Sheekh Maxamuud mucaarad baa ku ahay dowladnimadiisa iyo fashilka dowladnimada Soomaaliya inuu number 1 yahay baan aaminsanahay. inuu aaminsan yahay beel gaara inay Soomaaliya sabramas yeelato oo ragga uu isku hareereeyay ay yihiin raggii ururka Haag madaxda ka ahaa. Soomaalida ay dir number 1 ka tahayna uu gumeeyo taa horta uu aaminsan yahay ورا كنت الشري ويسعوا ويدي والله قعد كاضي وحالا كيري بلعد كيلومتر 6 إلى الشباب كتاليان وحالا قصوا قبصدي آذا يبال وحالا قصوا قبصدي بلدوين هيران ودن يو مقوكوري ما هو ولا قصوا قبصدي رجيسي waxna waa aamusan yihiin waxna waa shaqadii baa laga eegay waa mucaarad waxaana ugu horeeya Sambaloosh waxaa ku xiga Xasan Macalin waxaa ku xiga Xuseen Macalin oo aamusan oo amniga qaranka la taliya amniga qaranka oo dhan oo hadda ka hor aniga intuu gooni ila baxay anoo London jooga ee casumay oo igu yiri bu'aale ayaa adiga iyo qabiilkaaga habar yooris bay dejinaynaa
كبح در كريه واحد در لما واحد ينام مجران دول كان هوية قاطع وانك la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya u ah madaxweynaha Soomaaliya ninka sidaa ila hadlay ee dir wax la yiraahdo ma jiraan waa la tirtirayaa magacane bu'aalan adiga iyo qabiilkaaga habar yoorista jireen halkaas dhul banaana waa dhulka Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed ku nooshahay koonfur galbeed iyo dir oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan ay ku wada nooshahay Jubbaland hadda loo bixiyay dhulkaas uu yiri halkaas banaana jirayna laakiin wixii wabigaas Jubba dhinacan ka soo xiga Hawaii dhinaceeda ilaa iyo gaalkacyaha uu yaalo ka bax warkaas horta ragga Xasan waa ragga waa Sambalooshe oo ogay wuxuu ku hadlay Xuseen Macalin oo aniga sidaa ila hadlay Xasan Macalin oo laascaano doraato u ololeynaya qaatuma haddana isticmaalaya xabad uu ku dhufanayo garowga ka dhigtay isaga iyo fiqi Xasan Sheekh Maxamuud raggiisii nooca ahaa waa kala yaaceen caawo isagana labay mid u istaagtay inuu iscasilo oo kambaalaynta lagu casumo xilka tiri la yidhaahdo iyo inuu bareero oo uu waddanka ka dhigo waddan uu isagu madax ka yahay beesha caalamkana bannaanka u saaro horta anigu congratulation baa leeyahay Xasan hadduu caawa ka adkaado ambassador Swan iyo ambassadorka Maraykanka labadaa nin maaha beel kalaba ma rabo labadaa nin ee Maraykanka hadduu waddanka ka saaro weligay intaan noolahay Xasan Sheekh Maxamuud معارض كما نقول انت نولشي سكاهدي وحسيا كلمة على قرعاو حس الشيخ محمود هدو لبدا ني كادكادو oo wadanka ka saaro sidii farmaajo uga saaray ninkii South Africaanka ahaa hadduu Xasan ku dhiirado labada nin inuu wadanka ka saaro oo C6+ kala diro caawa laga bilaabo Xasan afhayeenkiisa social media الدفاع نقولها كلمة داس مالها المقرة صوابتنا وصوابينها حسن أنكو كلا تكسران السياسة الدلك هوية النمط ووضع كوبا بيرا يدر الصومالي ودن أنكو كلا تكسران هدو حسن دقال كاكو قولة يستو وعانو أقانا نرغو عدو البكات كاظم الشباب مو يعني شباب مركا وحان أمر سيرينا الله هضلينا وأن إنوال بأمرينا إلي حس الشيخ ليش يعني دو لكن مايكل سوان عليه جيمس سوان كاد حسن أو شباب كسوك عيو أو عاصمة دقيقة بصدان وين مستيبة مركا ومدى كبت بادية إلا يسعرو هذا الكاس وهذا الوين كلمة عليه وتاجيري أنا وحوي maaha inaan fikirkiisa siyaasadda ee qabiilka aan ku taageersanahay maaha waxaan ku taageerayaa inuu yahay madaxweyne Soomaaliyeed oo iska dhiciyay niman ajnabi oo dalkayga haysta oo raba inay nagu xukumaan dalkayga anigu British baan ahay laakiin dowladda Ingiriiska anigoo baasaboorkeedii haysta oo British citizen oo muwaadina oo 30 sano waddankaas dhex taagnaa xuquuqdaydii siyaasadeed ee muwaadinnimo ma dhaafsiisna inaan xildhibaan ama meel hoose oo golo deegaan aan ka tartamo waddankayga Soomaaliya waa inaanu nin ajnabi ah madaxweynahayga u talin karayn intaa way intaa ka dagaalamayo wax kala ka dagaalamayo waana intii aan farmaajo ku taageeray farmaajo siyaasaddii kacaanka oo soo laba kacaleeyay iyo beesha beelaha oo dowladdii militariga ka hor yimi oo dhan inuu la dagaalamo oo kacaankii dib u soo kiciyo oo uu garxajis iyo abar yoonis iyo abar gidir iyo cid walba geeska geliyey wax walba oo uu sameeyey waxaan ku taageeray qodobka ah
inuu iska dhiciyo ajnabi sababtoo mid baa naga dhaxaysa taas waxa weeye sharafta iyo karaamada madaxweynaha Soomaaliyeed ee villa Soomaaliya fadhiya inaan ilaashano wixii dhexdeena aan isku hayno iyo siyaasad xumadii uu isticmaalay beesha uu siiyay xilalkii dir iyo daarood ma lahaayeen iyo digil iyo mirflo Soomaaliya oo dhan waxeedii uu gacanta ka saaray beesha taas waa isaga iyo siyaasadiisa laakiin ta karaamada dalka inuu ilaaliyo isagana is ilaaliyo taas way ku taageer xasanna waa intaa maanta inta aan ku taageerayo xasan sheekh maxamuud aniga inuu xabadii u dhufto buu ka xigaa inuu wax kale ama wax kalena dhex maraan waan ogahay halkuu iga taagay laakiin isagana waa ogyahay inaan asxaan naga dhaxayn halka aan ka taaganahay laakiin waxaa naga dhaxaysa inaan waddanka wada leenahay karaamadiisa iyo sharaftiisa madaxtinimo uu ilaashado anigana aan taas ku taageero taa way naga dhaxaysa soo haray talada dalka maxamed siyaad barre 21 sano na haystay military daaroodana wuu ahaa muu haysan waxa uu xasan sheekh haysto magaalada caasimadda qabiilkii xoogga iyo xiniyaha qoryaha sitay dagaalamaya hadda xasan intuu haysto maxamed siyaad barre ma haysan markuu dalka qabsaday laakiin muxuu haystay dad daacad u ah oo qabiil kasta ah oo Soomaaliyeed qabiil marka la yiraahdo xasan ma haysan waxa uu maxamed siyaad barre haystay waa maxay wuxuu haystay reer loyal u dhimanaya oo 10 kun oo ciidan oo askarta intay u noqdeen maxamed siyaad barre garab taagan ayuu haystay xasan intaa ma haysto imika waan ogahay laakiin awood kale oo siyaasadeed oo aan la loodin karaynin ayuu la fadhiyaa gobolka shabeellada dhexe iyo banaadir waana awoodda ah reer hebel iyagoo waxba ku qabin bay reer hebel ahaan u dhimanayaan taas weeye tuu xasan hadda ka faa'iidaysanayo ee uu 10 sano kale kusii joogi karo laakiin waxaan u sheegayaa ma ka adkaan karo nimanka samaystay Soomaaliya oo dhan gobol u maalgashaday xasan kama adkaan karo haddaan usii sheegayaa isaga waa laga yaabaa sanad 2 sano inuu ku darsado waa laga yaabaa inuu sanad sii dagaalamo saddexaad laakiin way ka adkaanayaan haddaan usii sheegaya xasan way ka adkaanayaan 3 riisan bay uga adkaanayaan kow walaaladii bay isticmaalayaan iyagaa dilaya sidii caydiid loo dilay kow number 2 shabaab bay kusoo hubeynayaan gobollada oo dhan iyo magaalada muqdisho ku qabsanayaan number 3 maamul goboleedyadoo dhan bay ka furfurayaan bannaan cidlaa bay dhigayaan ilaa heer uu gaadho inuu dhaafi waayo villa Soomaaliya oo qabiilkiisa isku hareerayo markuu halkaa gaadho hawiyaa ku kacaya odhanaya waadna khasaarisay dalkii baa baabiisay karaatay caligeedii dhinac walbay kaga furayaan xasan sheekh waxaa leeyahay shariif xasan iyo sheekh shariif iyo gruub dhan baa lagu kicinayaa aakhirkii isagoo carad ayuu ka baxayaa magaalada intaas wey inuu xasan hadda inuu sii fahmo 9 bilood buu haystaa 9 bilood 900 milyan ee dollar ee banaanka laga keeno ee Turkiga iyo Carabaha iyo meelaha laga keeno iyo 200 milyan cashuurta gudaha intaa iska sii urursado hadhowto isagoo bilyaneer ah doorashada haysa soo sharaxo ninkii lacag loo baa la dooranaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الشيء صومالاي مرتين قرا الشيء صومالاي قيل كنت رفضا صومالاي قيل قرمدبو soomaaliyagii gurmad buu rabaa soomaaliya waxay u baahan tahay gurmad Salebaan Rambo nin la odhan jiray buu ninkani xasuusiyey oo garkii caddaaya uu berigii la baxay iyo timihii markuu gacanta laabtay xasan sheekh Salebaan Rambo oo SNMta ahaan jiray oo dictoor ahaa wuu xasuusiyo saa garkaas lahaa calaa ayi xaal waa idin wada salaamayaa waxaana leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu